وتداول عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونسان ملك ونقدا ونسان كسو دوادا ورسي جار أو عاوة أن لا يلام دونه هديو إلى هيرادو أن ورية على يره أو استجوا هذا كسوغان أن هلك مظاهرات كسعودو يصيدوا كله عبد الناصر عبد الله أو كرين سوماليات إن مدأنا دحدري أن كلها نيا وحندونا يا إن عندك شرعية على قوة ديو مظاهرادii maalmihii socday iyo ninka la xiray iyo xukunku waxa uu noqon doono laakiin intaan u gudbin waxaan jeclahay daqiiqad laba daqiiqo inaan cali weydiiyo cali xaaladda magaalada minneapolis waa sidee deeq marka hore adiga cabdinaasir baa idin salaamayaa xaaladda waxaad moodaa in ay aad u xun tahay saad u jeedo halka hadda aan kala hadlayo waa saldhigii booliiska ee xalayto dabka la qabadsiiyey balse waxaad moodaa ilaa iyo hadda in gudaha loo galayo oo la jijibinayo saad u jeedidba banaanbaxa halkan uu ka socdo waxaa maanta joogay ciidamo fara badan oo loogu talagalay in ay banaanbaxa ama rabshadaha noocan oo kale ah ay ka hortagaan balse waxaad moodaa gabi ahaanba inay iskaga baxeen markii ay u taag waayeen dadku markaasi banaanbaxayo oo tuuriye iyo rabshado bilaabay dhammaan waxaa laga daadgureeyay halkan ciidamadii waxaa loo iskaga dhaxbaxay dadkii iyo rabshadihoodii ay horey u sii wataan guryo badan hadda la boobaya sidoo kaleeto ilaa iyo dhankaas yahana biinay dadku ay wadadu ay u sii qulqulayeen marka waxaad moodaa in ay rabshadaha ka daran tahay maalinkii la soo dhaafay iyo maalinkii ka horreysay labadaba waaya cali marka waxaa la sheegay in 8 habeenimo uu bandow bilaaban doono haddana waa 9 iyo 15 daqiiqo ay maraysaa maxaa isbedelay bandowgii la soo rogay adeeq waxaa jiray bandow saa sheegtaba in uu dhaqan galo 8 fiidnimo ee caawa ay ahayd balse waxaad moodaa gabi ahaanba madowgaasi in uusan ka hergelin magaalooyinka mataanaha ee Minneapolis iyo St. Paul labadaba waxaad moodaa in uusan bandowgaasi ka hergelin ay dadku sidii caadiga ah ay banaanku u wada joogaan oo ka mid tahay bahda miidiyada oo halkan saad u jeedo gadaasheeda aad u buuxo waaya marka cali hadda bal ka waran jawiga ma dagaal baa jira ma jawi degan baa lagu mudaaharaadayaa waa sidii xaaladda deeq haddaan kaaga warramo xaaladda sida ay hadda tahay aniga shalana waa joogay daraadna waa joogay balse waxaan isleeyahay maanta eegtid shalay iyo daraad sidii ay ahayd markaad fiirisid maanta ayayba ugu daran tahay isleedahay oo dadkii ka badan yihiin marka waxaan qiyaasayaa inay tahayba maanta maalinka ugu darneed waaya marka booliska iyo ciidamadii dheeraadka ah ee la keenay waxaa tiri dib ayay u gurteen marka dambe dib ma ku muuqdaan mise meesha dhan ay iskaga baxeen maya dib bay u gurteen oo gawaaridoodii ayay raaceen waana waxaa la iskaga dhexbaxay dadkii oo keliya wax ciidan oo halkan ka muuqda ama iga agdhow ma jiro waa un dadkii oo keliya waddadii waa la xiray way xiran tahay dadkii bay u xiran tahay meeshii ama halkii ay gacantooda ay qabata ayay jebinayaan iyadoo weliba maxay ahaday dukaamaha ama ganacsiyaha goobaha ganacsiyada lagu xirtay protection oo alwaaxyo lagu dhijiyay waxaad moodaa in alwaaxyadii ay weli fujinayaan dadkii oo muraayadihiiba ay maxay ahaday oo awal jijibiyeen haddana aysan celinaynin alwaaxyadan waaya cali marka su-aasha ugu dambayso aan jecel inaan ku weydiiyo anigoo jecel inaan cabdinaasir cabdulaahi oo ka mid ah looyarada soomaalida ee degan gobolka Minnesota bal dhanka sharciga aan wax ka weydiiyo cali marka bilaqada iyo boobkii aan ogeyn xalay iyo habeen hore socday ilaa iyo hadda ma socdaa mise xaaladda dhanka bilaqada waa okay sida hadda ii muuqato deeq ilaa iyo waxaan soo lugeynayay dhankaas iyo siidar iyo leeg meesha iska gooyaan waxaan arkayay dad fara badan oo banaanbaxayo oo dukaamadu qaar ay furnaayeen ama qaar ay xirnaaba dhammaantood ay bililiqaysanayeen waxaan isleeyahay bililiqada sidii ay u socotaa oo wayba ka sii dartay haddaan iraasado waa saas ayaan isdhihi karaa marka dadka mudaaharaadaya hadda tiradooda meeqaa ku qiyaasi kartaa wallaahi deeq tiradooda aad bay u badan tahay waa saa'id weeye in shalay iyo dabcan adiga waad joogtay shalay iyo daraadba intii waa ka badan yihiin oo aad bay ugu badan yihiin waaya caliyare aad baad u mahadsan tahay kaas waxa uu ahaa caliyare soo jeedo waa dhalinyaro Soomaaliyeed halkan dhooban oo ayagu ka qayb qaadanayo mudaharaadkan muqdisho joognaa maanta saad u jeedaan waa dhalinyaro fara badan oo ayagu oo ka qayb qaadanayo
waayahay waayahay daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhalinyarada soomaalida ee mudaharaad ka qayb qaadanaya iyagoo muujinaya shucuurtooda ku aadan dilkii loo geystay ninkii madowga ahaa maalnimadii isniinta ee lagu dilay magaalada Minneapolis banaanbaxaasi ayay qayb ka ahaayeen dadka soomaalida caliyare aad baad u mahadsan tahay waxaan markaan jeclahay aad intii salaamaya waxaan markaan jeclahay cabdinaasir cabdulaahi waxaa tahay nin garyaqaan ah sharciga maraykanka ayaad baratay in muddo ayaa kusoo shaqaynaysay sida aan ognahay maalmihii ugu dambeeyey waxaa socday mudaharaadyadaasi waxa ay sababeen khasaaro naf iyo maalba leh waxaana dadku ay samaynayeen dukaankii arkaan ayay bilqaysanayeen meelaha qaar ayay gubayeen sidee ayay dowladda ula xaalaysay sharciyan guud ahaan wixii aan aragnay 5 maalmood ee lasoo dhaafay runtii deeq waxaad moodaa inay xamaasad kacisay ninkii ahaa George Floyd dilmadiisii taasoo ay dad badan ay jidadka aadeen streetka kaceen oo ay mudaharaad ballaaran sameeyeen taasoo isku bedelay markii dambe in ay boob iyo dhac iyo in gubba hanti badan ay ku burburto dowladdu gaar ahaan waxay kala leedahay dhowr level bay kala leedahay degmada magaalada Minneapolis waxaad moodaa gaar ahaan qaybtii booliiska ee ka dhacday inay focus laga dhigtay agaarka businessyada u dhawaa awood ahaan maadaama shacabku aad u badnaayeen dadka mudaharaadayay waxaad moodaa in la overwhelm garay ama lagaba awood batay ciidamadii si marka loo ilaaliyo inay arrintu gacanta kasii baxdo dhimasho dhaawac kale u yimaadaan inay ka baaqsadeen laakiin xalay iyo caawa waxaad moodaa inay national guardka oo ka baxsan Minneapolis oo ay governorku iyo ay iclaamiyeen inay activate gareeyeen ayaa hadda soo galay kuwaasna aad moodaa inay waxoogaa yar hadda ay wax ka bedeleen laakiin de waxaa weeye dadkii xataa bandowga lasoo saaray ee ahayd inaan 8 fiidnimo laga bilaabo guryaheena aan ku jirno waa sida hadda cali noo tilmaamay inay weli ay socdaan xamaasadda xataa iyo xadhiggii qofkii ka dambeeyey waxaad moodaa inayna wax isbedel weyn aysan keenin baad moodaa marka bandowgii lasoo rogay haddii uusan dhaqangelin qofka la qabto oo kale sharciga gobolka Minnesota muxuu dhigayaa qofkii la qabto mar walba ma aragtay tallaabooyin ay ka qaadi karaan way jiraan waa la xiri karaa waa la ganaaxi karaa hase ahaatee waxaad moodaa inay isku dayayaan in arrintan iyada enforce garaynin sharciguna waa jiri karaa in la dhaqangeliyana waa gaar waaye haddii ay isku dayaan hadda in dadkii arrintan la dhaqangeliyo inay gacanta kasii baxdaa suuragala marka waxay isku dayayaan siyaabo kala duwan oo dadkii lagu dejin karo iyadoon arrinta lasii inflame garan oo mataqaanaa dabka lasii shidan waayahay daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamij gaar ah oo xogmaal media ka daawanaysaan caliyare oo ka mid ah wariyaasha magaalada wuxuu sheegay in mudaharaadka uu weli sii socdo islamarkaana uu sii xogeystay ciidamadii ilaalada kaydka ee qaranka maraykankana la ceyrsaday meesha dhan iskaga baxeen sidoo kale booliskana halkaas iskaga baxeen laakiin hadda waxaan wareysanayaa cabdinaasir cabdulaahi oo ah garyaqaan soomaaliyeed islamarkaana in muddo ah ka shaqaynayay dhanka sharciga ah ayaa waxaan doonayaa inaan ka wareysto mudaharaadyadii socday maalmihii lasoo dhaafo oo dhan ayaa waxaan jeclahay inaan ka eegno dhanka sharciga cabdinaasir mar kale adoo kusoo dhawaanaya haddii aan kala qaadno dhibaatooyinka Drake Garvin oo ah ninka loo haysto in uu dilay George waxaa lagu oogay dambi dil ah waa noocee dambiga lagu eedeeyey muxuuse yahay waxaa lagu oogay laba dambi baa maanta ay xeraalintu ay iclaamisay inay ku oogayaan labadaas waxay kaliyeen countiga koobaad ama qaybta koobaad third degree baa la yidhaahdaa macnaheedu waxaa weeye in qofkii booliiska ahaa uusan weli lagama hadlay wax kas inuu isa u dilay laakiin ficiladii uu sameeyey inuusan qof bini aadama noloshiisa tixgelin la'aan xilkasnimo la'aana inuu u dilay axmaqnimo ah taasaa marka waxay noqonaysaa third degree oo runtii ciqaab serious ay leedahay inta badan ilaa iyo 25 sano gaari kartaa laga yaabaa in lagu xukumo haddii lagu helo waayo hadda marka hal nin ayaa la xiray oo dacwadda lagu soo oogay saddexdii nin ee kale ee la joogtay ee dilka ka qayb qaatay ayaguna xaaladooda waa sidee so kulley arrintan waxay ku socotaa si xawli ah waxaan ognahay geedi socodka dacwada inta badan waa waqti dheer bay qaataan in baaritaan dhammaystiran oo hufan la isku dubarido marka maadaama ay jirto xiisad ba'an jirto magaaladii ay buuq badan ka jiro
dad badan ay ku dhaawacmeen hanti badan lagu gubay waxay isku dayeen xeer ilaalintu inay hordegaan oo isku dayaan inay dedejiyaan inkastoo la odhan karo dadku ay fikir ahaan ka duwanaan karaan taa marka waxay keentay keli inay hadda ku bilaabaan qofkii arrintan ka dambeeyey oo isagoo caddaymihiisa la heli karo xubnaha kalena marka inay haddana baaritaankooda ay dhammaystirtaan ay gadaal kaga yimaadaan siday sheegeen laakiin hadda waxay ku bilaabeen xubinkii ugu muhiimsanaa ee arrintan ka dambeeyey ee ku taagnaa lugtiisa ku hayay George Floyd oo sababay geerida ninka la yidhahdo George Floyd adigu waxaad tahay in muddo ah ayaa howlahani kusoo dhex jirtay hadda dacwadii ayaa la soo ogay maxaa xiga marka dacwadda so maanta hadda waxay announce gareeyeen waxaa weeye labadaas dacwadood oo kala duwan mid third degree ah iyo mid manslaughter la yidhaahdo ay labadaas ay midna waa 20 sano ayuu gaari karaa ciqaabteeda midna waa xigto oo yar oo ilaa 10 sano gaari kara hadda waa oogitaanka way markay ogaan maxkamaddii baa laga xareeyay waxaa iman doona marka istaabyo badan ay dacwadu mari doontaa waxaa ka mid ah in arraignment wax la yiraahdo la horkeeni doono maxkamadda kadib waxaa dhici doonta in pre-trial wax la yiraahdo istaabyo badan bay mari doontaa ilaa iyo marka dambe xeer beegti ka kooban 12 qof loo fadhiisiyo iyo garsoorihii ay dacwadda dhageystaan dacwadaha elementyadooda ama dacwad walba xubnaha ay ka kooban tahay haddii lagu helo ayay noqonayaan markaas kadib beyond reasonable doubt wax la yiraahdo boqolkiiba 99 baa la odhan karaa in haddii lagu helo ayuu qofkaasi ta mudanaya ciqaabta haddii kaloo lagu waayana waxaa laga yaabaa qofkaas isaga inuu uusan ka baaqsado ama aanan dacwaddaasi dembiga lagu helin marka istaabyadaas oo dhan bay mari doonaan marka cabdinaasir dadka inta badan way ku jahwareeraan xukunka nuucani oo kala ah cidda ridaysa ma xaakim ayaa ridaya ma dad kale ayaa ka fadhiisanaya markii arrin noocan oo ay kala dhacdo yaa ka fadhiista yaa dacwadda soo oga yaana xukunka ugu dambeeya qaadi kara so sharci ahaan waxaa weeye xeer ilaaliyaha ayaa xil ka saaran yahay inuu dacwad soo ogo dacwadda markuu soo ogo wuxuu ka faalgaraynaya ama uu ka xaraynaya dacwaddaasi u bandhigayaa garsoore degmada Minneapolis ka tirsan ama Hennepin County ayaa dacwadda maadaama ay felony level tahay dacwadihii ugu sarreeyay baa la horgeynayaa garsooraha marka waxaa iman doonta dhinacyada looyarada ay leeyihiin dowladda xeer ilaalinteeda iyo ninkan la yiraahdo Derek Chauvin isagana looyaradiisa waxay samayn doonaan fursad u heli doonaan dad badan oo communityga laga soo xulo xeer beegti la yiraahdo ayaa waxaa laga xulan doonaa 12 qof 12 qof baa waxay dhageysanayaan sida ay wax u dhaceen iyo qodobada isu geena marka judge-ku wuxuu maamulayaa arrinta sharcinimada oo instruction buu siinayaa xeer beegtida 12 qof ee la xushayna waxay go'aan ka gaari doonaan haddii qodobadaas ayta loo bandhigay hadda markaan kasoo qaadano tusaale ahaan dacwadda koowaad oo ah third degree ah 4 xubnood oo qodobood bay ka kooban tahay 4taas qodob mid walba haddii si buuxda loogu helo beyond reasonable doubt lagu helo 4ta qodobba waa inay dhammaystirmaan kadib bay markaa odhan karaan okay qodobadii waan ku qanacnay ficiladii uu sameeyey iyo sharciga way iswaafaqayaan sidaa daraaddeed qofkaanayta waxaa waa guilty way ama guilty ma aha markaasay soo dhacaysaa marka iyagu waxay awood u leeyihiin xeer beegtida 12 qof ayaa guilty verdictiga samayn doona garsooruhuna ciqaabteedu ayuu hadhow toole 25 sano ayaa la qiimeynayaa inta uu ka mudanayo Mike Freeman oo ah xeeralyaha deegaanka Hennepin waxa uu shalay yiri ma hayno wax ku filan amba caddeyn ku filan askartii dambigani geysatay annagoo og in muuqaalo kala duwan lagu baahiyay baraha bulshada maalin kadibna mid ka mid ayaa la soo xiray maxaa isbedelay cabdinaasir shalay iyo maanta kolley laba qaab oo lagu tilmaami karaa shalay toole waxaad moodaa inuu yara xadgudbay oo uu yara degdegay markii uu ereygaasi yidhi kadib xafiiskiisa waxay soo saareen statement ay leeyihiin way ka falceliyeen iyagoo odhanaya wuu ku khaldamay ereygaas ayaad inuu yidhahdo caddaymo waxaa jiri kara qofkan aanan dembiga loogu heli karin marka haddii aan siino xataa benefit dalka inay arrintaasi tasaa tahay waxaa weeye caddaymo badan way jiraan laakiin inta badan caddaymaha keliya la hayo iyo dacwaduhu inta badan say u socdaan geedi socodkooda way kala duwan yihiin taxadar badan ay ka muujiyaan oo ay lagu guulayso hadda kahor waxaa jirta Maryland dacwaduhu degdegooda wuxuu ku xun yahay haddii lagu degdego waxaa suuragala looyarada dhinaca kale oo inta badan anaguba aan samaynaynay oo dadka difaacaya ah waxaa laga yaabaa intay ka faa'iidaystaan dhaliilahaasayta iyaga ah ay sababtaba in qofkaanayta dembiga lagu waayo Maryland bay hadda kahor ka dhacday xeeraaliya waxay ahayd gabadh madow ay ahayd markay xamaasadii bilaabatay waxay isku day inay durbada dejiyaan oo 7 xubnoodba
maxkamad la horgeeyo hase ahaatee mid walba oo lagu waayo lixdoodiba iyadoo caddaymaha sidan oo kale video iyo wax walba loo hayay marka runtii waxaa weeye in la yidhaahdo dembiga qof lagu helo standardku waddankan aad buu u sarreeyaa caddaymo dhammaystiran in la helo oo caddaymahaaseta qodobadooda mid walba la waafajiya loo baahan yahay taana inta badan waxaa waqtiga waxa qaata taa weeyaan hase ahaatee laakiin arrintan oo kale maadaama ay xamaasad abuurtay caddayntan hadda uu maanta xeeralyaha uu ku oogay waxaan isleeyahay 2 maalmood ka hor buu samayn kari lahaa gadaal bay ka bedeli karaan mar walba waxaa jira waxa la yidhahda complaintiga waa la amend garayn karaa haddaba saasaan filayaa labadan dacwadood kuma ekaan doonaan caddaymaha markay soo dhammaystirmaan waxaa suuragal inay kordhiyaan waa suuragal inay qodobada wax ka bedelaanna waa suuragal waaye soo marka fursadda maadaama ay haysteen si xamaasadan loo xakameeyo waxaa fiicnaan lahayd 2 maalmood ka hor buu samayn kari lahaa baan qabaa xeeraalyo gariiqan cabdinaasir anigoo jecel in waqtiga aan balannay aan kugu fasaxo laakiin raalli iga noqo daqiiqad iyo 2 daqiiqo waxaan jeclahay in shacabka aan u sheego waxaan nagu soo biiray sheekh xasan dhooye oo ah gudoomiyaha jimciyadda islaamiga ah ee waqooyiga America oo fadhigooda ugu weyn uu yahay magaalada Minneapolis oo hadda qalaasada ugu xooggan ay ka socoto sheekh xasan dhooye kugu soo noqon doona cabdinaasir ayaa dhanka sharciga aan ka wareysanayay sida ay wax u dhaceen marka cabdinaasir saddexda nin ee kale ee dambiga kula jiray ninka hadda la xiray ma kula tahay in ay badbaadayaan ayagana runtii waxay ku xiraan doontaa caddaymaha ay helaan caddaymaha markaan raadnana kuma eka oo keliya fiidiyoyadii aan wada daawanay ay ka qayb qaadanayaan runtii in la xakameeyo ninkii la dhaawaco la dhibaateeyo marka dambena sababto inuu u dhinto waxaa jiro kaamirada badan oo iyagu ay wateen oo ku xidhan baa jiro kaamirada waxaa jiro kuwii gawaadhidoodii baa jiro statementii inay bixiyaan in kale waxaa kulley qof walbo lawyer oo anigu kamid ah cid walba waxay kula talinaysaa inaynan hadlin oo aan filay kulley laftooda lawyeradooda inaynan u ogolaan doonin inay statement bixiyaan siday wax u dhaceen marka waa waxyaabo badan baa xeerin doona ayaa ka sal u noqon doona in go-aan lagu gaadho in lagu fayl garay sababtaasay iyagoo dib ugu dhigtaan waqti badan in la geliyo qodobada ay noqon doonaan in dembi loogu soo ogo waa suuragal in qaar ka mida lagu ogo inaan qaarkood aan lagu oginna waa suuragal waay marka taa waxay ku xirnaan doonta kolba caddaymaha ay helaan marka cabdinaasir haddii lagu helo dacwadda lagu soo ogay askarigan xukunkiisa imise sano ayuu noqon karaa so qodob ahaan ka third degreegu inta badan waxaa weye levelka saddexaada waa ilaa iyo maximumka ugu badan waa 25 laakiin marka la yidhaahdo garsoore waxaa jira waxa la yidhaahdo ciqaabaha sentencing guideline baa jiro kuwaasayta marka waxay loo kala eegayaa qofka dembiyada uu hore u lahaa iyo inuusan dembiyo hore u lahayn iyo meeqa fursadooda horuu soo maray iyo waxyaaba badan oo la eegayaa jira marka chartigaasayta qofkan oo kale oo booliisa maadaama aan filaya inuusan dembiyo hore uusan lahayn marka laga reebay waxyaabahan complaintyada laga gudbiyey way ka duwan tahay dembiyo intii maxkamadda hore la hogeeyay dembi lagu helay oo kale maadaama aysan jiraynin waxaa laga yaabaa presumptive waxaa jirta mataqaana sentence oo kale inaa 12 sano oo kale camal sidii hadda ka hor maxamed nuur qiyaastiisii oo kale baa suuragala inuu ku yimaado balse waxaan kaloon tilmaami lahaa sababta booliiska ama xubnaha booliiska ah ay u adag tahay in dembi lagu helo sida shacabka kale ay kaga duwan yihiin booliisku ku xisaabtan shaqadooda dhan baa waxay ku taxalluqdaa inay qori isticmaalaan oo ay xoog isticmaalaan shaqadiisa dhan baa ka mid ah balse waxaa la isweydiinayaa inteebay goormay xadgudub sameeyaan goormayse shaqadooda ku egyihiin xuduudda yartaa mar walba ayaa keenaysa in qofka lagu helo inaan lagu helin inteebuu shaqadiisa qofku inuu maquuniyo oo uu sabdiyo ku sameeyo oo uu xakameeyo oo uu gaariga ku dhufto oo celiyo qayb waxaa jirta mataqaana trainingkooda uu u ogol yahay iyo qayb markay xadgudbaan ay dembi noqonayso marka taasaa inta badan ma aragta kiisaskan oo kale ka dhigaya wax adag oo inta badan aan loogu helin marka laga reebo waxyaabaha guuda dadku ay tabayaan runtii taageerada loo qabo booliiska iyo dad badan oo cunsuriyad iyo waxyaaba badan marka laga reebo sharci ahaan lafteeda inta badan adag tahay in lagu helo cabdinaasir sida caadada ah marka uu askari caddaan ah oo boolis ah uu dilo qof madow ah waxaa laga maraa dhib aad u fara badan in dacwad lagu soo ogo iska daa in la xiro maxaa arrintaas u sababaas dhigi kartaa waa ta aan sheegayno kale runtii waxaa weeye taageero badan oo xeerbeegta xataa marka la yidhaahdo qofka xeeraalyaha wuxuu isweydiinayaa mar walba haddii aad qofkan dembigan ku oogto inaad oogto mar walba way fududahay laakiin inaad ku guulaysato way adagta dembi xeeraalyuhu
cid walba isagoo ka amba qaadaya videoga la arkayay dembi wuu ku oogayaa laakiin markii maxkamad la geeyo waxaa laga yaabaa mar walba in lagu luus gareeyo suuragal ah so marka booliiska taageero badan oo shacabka u hayaan baa jiro gaar ahaan marka la eego dadka caddaanka u badan marka minority-ga laga reebo marka waxyaabo badan baa sahlaya inaanan dembi loogu helin taa kalena sharciga laftiisa ayaa wuxuu u design garaysan yahay inuu booliiska aanan dembi badan lagu helin maadaama shaqadooduba ay ku tahalluqdo sababto meesha waxaa la isku hayaa balancing baa jirta marka public interestiga la eegaya in aynu kala dambayn iyo nidaam uu jiro booliis jiro oo mataqaanaa dadkii ay u hoggaansamaan waa laga maarmaan waaye inay dadka iyagana mataqaanaa xadgudbaanna lama rabo marka balansigaasaa mar walba waxaa weye sharciyadu laftooda ay ugu talagaleen hadda ka hor inay favor gareeyaan laakiin waxaad moodaa hadda zaxmadan iyo dhibkan dhacayo baraarugan badan ay jiro inay wax ka bedeli doonto state walbana ay tallaabo qaadi doonaan ay arrintaas iyada dib usoo dabaaliyaan oo dib usoo celiyaan si ay u fududaato hadda kadib in booliiska maxkamad la horgeyn karo laguna heli karo cabdinaasir cabdullaahi waxa uu ahaa garyaqaankii ugu horreeyey ee soomaali ah ee ka howlgala gudaha dalkan maraykanka gaar ahaan gobolkan minnesota barnaamijkan ayuu ugala qayb qaatay isaga oo ku sugan gobolka minnesota cabdinaasir cabdullaahi aad baad u mahadsan tahay waqtiga aadna siisay sidoo kale aad baad umahadsan tahay adiyo sheekh xasan waa idin salaamaya aad iyo aad u mahadsan yahay qare waa ku salaamay assalaamu calaykum sidoo kale wacalaykum salaam cabdinaasir aad baad mahadsan tahay sheekh xasan dooye waxaa ka mid tahay culimaa diinka soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota sidoo kale waxaa u dhaqaaqdaa arrimaha bulshada mudaharaadkan maalintii shanaad ayuu socdaa soomaalida qayb ayay ka yihiin dadka mudaharaadaya ee cadaaladda u raadinaya ninkii geeriyooday ee sida foosha xun loo dilay bal guud ahaan xaaladda dalka maraykanka gaar ahaan gobolka minnesota bal ka waran بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين dhammaan dhegeystayaasha meela joogtaanba assalaamu calaykum intaa kadib xaaladda maraykanku waa qasan tahay xilligan hadda aan hadlayno minnesota waxaa lagu soo rogay bandow 8 fiidnimo haddana waxay ku socotaa 9 daqiiqo ma dhaqan gelin lake street oo ah meeshii dhibka ugu weyn ka dhacay intaanan hadda waraysiga soo fariisan baan fiirinayay waana lugaynayaa dadkii waa socdaan iyadoo ciidamadii amniga ama militariga la keenay iyada oo lasoo rogay bandow laga bilaabo 8 ilaa 6 subaxnimo qof kasta oo bandow u hoggaansami waayana lagu ganaaxayo $1 iyo intaasoo bilowda xariga maraykanka gobollo badan buu ka socdaa atlanta hadda arkayay oo xaruntii cnnka dusha laga saaran yahay dadkii ay u daateen saynkooda ay dusha ka fuuleen marka xaaladda runta aad bay u qasan tahay mana aha mudaharaad waa kacdoon wey kacdoon shacab gaar ahaan dadka madow iyo dadka la xulufada ah oo ka xun cadaalad darrada 400 ee sano jirsatay ee kasoo bilaabatay midabta koorka kasoo bilaabatay adoonsiga dad xor ah inta loogu tagay dalalkoodii maraakiib laga soo buuxiyey laamiyada maraykanka lagu dhisay daaraha waaweyn maraykanka lagu dhisay arrintaas ayaa la taabanayaa oo dadku ay ka damqanayaan waxaa kaloo laga damqanayaa dad fara badan oo booliisku dilay oo madow ah ayaa jira intaan la ogeyn baa ka badan social media iyo telefoonadana kashifay qaabkii booliisku u dhaqmi jiray marka dadkan xanaaqsan utun iyo urkutaalla haysa soomaalida minneapolis bay degan yihiin iyo minnesota guud ahaan waa madow sheekh xasan waxay raali iga noqo waxaan ugu soo maqlayaa ilaah hadlaysaani ma ku maqlayo deeq sheekh xasan waxaan ugu soo biiray wariye caliyara nagu soo biiray sheekh xasan raali iga noqo caliyara waa sidee xaaladda magaalada hadda deeqow saa hore kugu sheegayba goobtii hore oo halkaas aan joogay marka hadda ay kula hadlaayay saldhigga hore loo gubay waa ka soo dhaqaaqay oo saa u jeedaba halkan hadda aan taaganahay waa meeshii boondadii Hiawatha iyo Lake Street oo maanta ciidamada militariga halkan ay aad u dhoobnaayeen iyagoo waliba dadka ka celinayo falalka ay markaasi ay damacsan yihiin inay ku dhaqaaqaan marka waa cidlo saad hadda u jeedo bandowgina ma saameenin oo dadku waxaad moodaa in uusan bandow aysan ka warhaynin haddana waxaad malaynaysaa ayagoo ka warhaayaba inaysan ay dheg jalaq u siinaynin marka ciidamadii cali hadda halkay ku sugan yihiin
ما حمى deeq مقال saa hore kugu sheegay ciidamadii waa tageen wax ciidan oo haatan ku sugan goobtan ma jirto dadkii banaanbaxayay oo u batay dhankaas iyo downtownka xaggeeda aaday ma ogiye ciidamo wax la yiraahdo booliis haday yihiin iyo haday militariga ciidamada sida gaarka ahaa loogu talagalay in ay ka maxay ahaydey ay ka hortagaan rabshadaha noocan oo kaleeta ah kuma sugno goobta waayahay marka cali hadda laakiin wax dagaal ah amba wax isqabqabsi ah ma jiro Soomaaliya deeq hadda goobta aan ku suganahay way dadku waxaad moodaa in ay ka gadisteen oo ay dhankaas iyo downtownka xaggiisa wadadan weyn ee Lake Street ay cagta saareen marka waxaad moodaa goobtan oo maanta ay soo taagnaayeen ciidamada iyo dadka in haatan ay firaaqo noqotay oo ay dadku ay goobta ay iska tageen oo dhankaas magaalada Hanabin xaggeeda ay aadeen marka cali mudaharaadkan ma u muuqdaa mid caawa joogsanaya oo dadka baxaya xaafadooda aadaya maya deeq uma muuqdo dabcan wuxuu u muuqdaa mid sii soconayo oo weliba xoogaysanayo saa hore kugu sheegay waxaad moodaa labadii maalin ee la soo dhaafay mudaharaadyadii socday in uu kan ka xoog badan yahay waxaad moodaa marka in uu sii xoogaysanayo weliba oo dadku aad moodaa inay sii ballansanayaan maalinka sabtida ah iyo maalinka axadda ah iyagoo weliba boorar waaweyn wato ay ku qoran yihiin saddexda kalena la soo qabto dabcan ninkii falkaas geystay dadku waxay ka warayaan in xabsiga loo taxaabay maanta balse saddexdii kale ee falkaasi kala qayb qaadanaysay ay weli aanan wax tilaabo ah laga qaadin markuu dadka cadaaladdaas ay dalbanayaan marka cali ma jiraan meelo la gubayo sidii xalay oo kale miyaa jirtaa hadda goobta aan ku suganahay deeq uma jeedo wax gubanayo balse markaad aadid dhankan iyo siidar xaggeeda iyo leeg meesha iska gooyaan dukaamo ayaa lagu gubay oo elliga iyo u dhaxeeyo Lake Street dukaamo ayaa gubanayay sidoo kale saldhig laftirkiisa hadda dab bay ku shideen oo kale mar labaad dadku horay bay ka galayeen daaqadahay uga dhacayeen dabaqa koray wada saaran yihiin waxaad moodaa dab kale inay haddana ay ku bilaabeen saldhigii ay horay u gubeen cali waxaan ku rajaynayaa inaad nabadgelyo gurigaada aad ku tagto kaamirada adoo sii jeedinaya mar mana tusi kartaa siday wax u socdaan haa waa idinkugu aadinayaa waayo daawadayaal cali yare khadka ayaa ka go'ay waxa uu ahaa wariye Soomaaliyeed oo isagu hadda si toos ah u jooga magaalada Minneapolis gaar ahaan halka uu banaanbaxa markii hore uu ka bilowday ee ahaa Lake Street iyo Hiawatha oo ku yaala saldhigga booliska magaalada Minneapolis waa saldhigga saddexaad ee booliska magaalada Minneapolis oo xalay la gubay hadda ayay u suura gashay cali yare inuu nagu aadiyo kaamirada si aad u aragtaan deeq saa u jeedo halkan waa goobtii ay taagnaayeen maanta ciidamada booliiska iyo ciidamada sida qaaska u tababaran saad u jeedidba waa halkan waa buundadii weyneed ee Lake Street iyo Hiawatha meesha iska goynayeen waa firaaqo oo wax jooga ma lahan marka waayahay waxaad moodaa in halkaas ay dadka u gadoomeen iyo downtownka waayahay cali yare aad baa mastaa Sheekh Xasan Dooye ayaa ku noqonaya cali yare oo ku fasaxaynaa waxaan ku rajaynayaa inaad si nabad ah gurigaada ku tagto haye waa mahadsantihiin deeq iyo Sheekh Xasan Sheekh Xasan Dooye marka la soo dhawo hal noqo cali ayaa naga soo dhaxgalay oo si toos ah noo tusayay mudaharaadka hadda ka socda magaalada Minneapolis gaar ahaan saldhigga saddexaad ee booliska magaalada Minneapolis ay ku leeyihiin oo xalay la gubay Sheekh Xasan waad arkaysay cali tabintii tooska ahayd marka ninkan la xiray maanta xabsiga loo taxaabay markii aad aragteen ma lagu qanci karaa xarigaasi loo geystay mid ka mid ah dadkii dilka geystay si waa loogu qanci karaa sina looguma qanci karo si waa loogu qanci karaa horta in la xiro oo lasoo qabto baaba waxaa ka taagnaa hawl iyo muran shalayna waxaa hadlay qareenka degmada Hanabin oo sheegay inaan weli cadaymo ku filan lahayn hay'adaha amniga in marka maanta lasoo qabto xabsiga la geeyo talaabo fiican bay ahayd laakiin waxaa aad uga xumaanay oo la yaabnay in la yiraahdo maaragtay dembiga darajada saddexaad iyo darajada labaad oo ah in wax la dilay baa lagu qaadaya badanaa darajooyinkaas waxaa loo adeegsadaa dadka daroogada iyo siyaabaha kale u dhinta
baa loo adeegsaday waxaan filaynay macnaha luqadda english waxaa la yidhahdaa third degree murder and second degree manslaughter marka runtii ma filaynin waxaan filaynay first degree iyo waxyaabo lamida marka arrintaa kuma qanacsanin laana ninkaasi isagoo dhahaya ma neefsan karo ku celcelinaya buu muddo maaragtay 7 daqiiqo mar lagu sheegay mar 6 daqiiqo mar 9 daqiiqo qoorta kaga hayay lowgiisa ilaa markii dambeetana ninkaasi uu saa ku nafbaxay marka kuma qanacsanin dembiga lagu soo oogay waxaan rajaynaynaa in dib looga noqdo dembiga uu xaqa u leeyahay lagu soo oogo oo inuu kas u dilay nin maaragtay aan hubaysnayn oo gacmaha ka xiran oo xabad dhulka u yaala ubax maxamed oo ka mid ah dadkana daawanaya ayaa waxay soo qortay simbool xabada ayaa dhacaya yaa ila maqla oo ila degan xaafadaasi waxaan rajaynayaa in dadka Soomaaliyeed ee degan magaalooyinka mataanaha ah ee si nabad ah ee guryahooda ku joogaan isla markaana ay ka nabad galaan dhibaatadan ka dhacaysa magaalada Minneapolis iyo magaalada Simbool labadaba marka Sheekh Xasan biri ayaa ka daran ayaa la leeyahay oo mudaharaad weyn ayaa ka dhici doona guud ahaan dalka Mareykanka ma kula tahay in banaanbaxyadan markii hore sida uu ku bilowday ee ahaa si nabad ah lagu sii wadi doono isla markaana dadka shucuurtooda ay u muujin doonaan si nabad ah ma la saadaalin karo mudaharaadyada in la yiraahdo si nabad ay ku bilaabanayaan si nabad ay ku dhamaanayaan laana waxaan ogeyn maalmihii markii ugu horreysay horta si nabad ay ku bilowdeen waxaan qabaa booliisku inuu qayb ka ahaa markay dadka sunta dadka ilmasiisa xabadaha caaga ah waxaasoo dhan markii ay ku tuureen maaragtay amniga waa isbedelay marka mudaharaadka waa dadku markay waayaan cadaaladda ama ay xanaaqsan yihiin qaabka ay ku cabiraan wadamada inaga aan ku noolahay oo qarbiga oo kale oo la ogol yahay meelaha mudaharaad la ogolayn baa jirta sida hadda Masar oo kale iyo meelaha la midka lagu bedelayo marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed mudaharaad peaceful ama nabadgelyo waad ka qayb qaadan kartaan shucuurtiina waa cabiri kartaan laakiin waxaan rabaa inaan idinkaga digo idinkuna wacyigeliyo hadda gurigeena jooga 8 fiidnimo magaalooyinka mataanaha ah iyo maaragtay kawniyada kala qaarkood waxa lagu dhawaaqay bandow adiga hadhow haddii dambe lagugu soo ogo hebel baa mudaharaaday iyo hebel baan la socday ma shaqaynayso waxaa la ogol yahay 6 subaxnimo ilaa 8 habeennimo intaas qofku waa mudaharaadi karaa si nabadgelya waa socon karaa shucuurkiisa waa cabiri karaa laakiin waxaan kula talinayaa dhalinyarada waxaan kula talinayaa ummadda Soomaaliyeed ee degan Minnesota iyo gobollada kale in ay guryahooda joogaan inay iska qayb qaadan meel la jijibinayo alaab la qaadanayo crime iyo dambi inay iska qayb qaadan laana meel walba kaamira ku taala diyaaradaha helicoptera wax duubaya mar walba cid kastoo dambi geystay waa lagu soo ogi doonaa maxkamad baana la horkeeni doonaa marka ha noqonin adigoo oo muslima dambiile muslima oo ilaahay iyo mujtamaca iyo diinta aaminsan yahay dambi ka galay dalka uu degan yahay shuruucdiisana dambi ka galay waayahay Sheekh Xasan banaanbaxyadan inkastoo la sheegay inay sii socon doonaan haddana Soomaalidu waxay qayb ka yihiin dadka banaanbaxaya sidoo kale waxay qayb ka yihiin dadka marka uu banaanbaxa dhaco khasaaraha markii dadka loo geysto ganacsiyada qaar dadka hagaajinaya oo xaaqaya oo nadaafadda ka qayb qaadanaya sidoo kale qayb weyn ayay ka yihiin kuwaasi oo kale markii aad aragto ama kaamirada ay qabato soo lama dhihi karo magaca Soomaalinimada iyo magaca dadka muslimiinta ay kor u qaadayaan gobolka Minnesota Soomaalidu waxay ku leedahay kaalin lixaad leh waxay ku leedahay door weyn madaxda dowladda ama ha noqoto governor's office ama ha noqoto commissioner Harrington ama ha noqoto attorney's office wayna soo wacayaan waxa way dadku talayna weydiinayaan wayna dhegeysanayaan talooyinka la sheer garanayna ama la wadaagayno Soomaalidu ganacsi bay ku leeyihiin waxa way hanti bay ku leeyihiin waa citizen waa dad degan dhibaato weyn horta way soo gaadhay oo xaafadda hadda dhibaatada ugu weyn ka dhacday waa xaafadii aan deganayn ganacsiga ku lahayn masaajidda ku lahayn aan deganayn dhibaato weyn baa na soo gaadhay ganacsi badan baa wax naga soo gaareen dhaawac baa soo gaaray dadka iyagii waxa kale oo xiran meel kasta aan ka adeegan lahayn oo wax ka gadan lahayn ayaa naga xiran dukaamadii waaweynaa farmashiyaashii dukaamadii yaryaraa waxaasoo dhan ayaa maaragtay qayb ka nahay haddana waa wax lagu farxo deeqow sawiradii aan aragnay waana dhiiro gelinayaa berito gabdhaha iyo wiilasha Soomaaliyeed iyagoo xijaaban iyagoo khamiiskoodii qaba oo welibana muujinaya islaamic identity-goodii yacni iyagoo muujinaya inay muslimiin yihiin iyo islaamnimadooda wixii lagu garanayay wadooyinka xaaqaya tirtiraya waxay dirayaan fariin ah I'm a Muslim I'm American macnaha muslimna waa ahay maraykanna waa ahay reer Minnesotana waa ahay waa ka xumay waxa dhacay dhulkan waxbaan macnaha ka nadiifinayaa oo citizen baan ahay degan meesha
maca dalikana muslim baan ahay madowna waa ahay marka soomaalidu also waa dad madow waxaa ku dhacay george maaragtay floyd wiil soomaaliya ku dhici kareen innaga waxaan nahay dad african americana marka realitiga laga hadlayo ama black american kaa tirahdidba marka walaalaheenna african americanka waxaa ku dhacaya waa la qabnaa wax badan oo inagu aan ku raaxaysanayno oo yidadiilaa gobolkan iyo gobollo kalena madaxooda aan ku helaynaa oo ku daaqaynaa realitiga marka laga hadlo sheekh xasan banaabaxa waxaa safka hore kaga jira hogaamiyaasha diimaha kala duwan ayaa safka hore kaga jira sidoo kale inkastoo muslimiintana ay halkaas ay joogaan laakiin dood fara badan ayaa taagan oo wax la leeyahay hogaamiyaasha muslimiinta ah halkaasi kama muuqdaan qofka doodaas qaba maxaad ugu jawaabi lahayd gar buu leeyahay waana dood saxa culummada iyo dadka maaragtay masaajidda madaxda ka ah anoo og qaarkood inay tageen waa qabaa inay mudaharaadka peacefulka ay ka qayb qaataan dadka la hadlaan kaalintooda ay qaataan aniga kula hadlaya xilligan minneapolis ma joogo sida caadada ay ahayd haddaan joogi lahaa anigoo boorkayga wata oo dhahaya justice for george floyd ayaan hortaagnaan lahaa culummada kalena waa ugu yeerayaa doodaa dood saxa weeye laakiin waxaan wadanaa dadaal kale oo ah qoraallaan qoraynaa madaxda gobolkaan wacaynaa hay'adaha amnigaan wacaynaa barashar xoog leh oo aan muuqan ayaan wadnaa oo macnaha la oran karo waa la mid ama waa u dhigmaa ama waa ka xoog badan yahay barasharka noo muuqda muuqaalka magaalada minneapolis sheekh xasan iyo wadadii aad taqaanay lake street maalin kasta aad ku safri jirtay isbeddel aad u xoogan ayaa hadda ka muuqda ganacsiyadii ka samaysnaa quraaradaha iyo muraayadaha ka samaysnaa islamarkaana markii aad wadada marayso aad arki jirtay badeecadda oo gudaha ku jirta hadda taasi way isbeddeshay oo alwaaxyo macmil ah iyo safiitooyin ayaa lagu dhejiyey calina sida uu sheegayay safiitooyinkii iyo alwaaxyadii ayaa haddana dib loo fujiyey markii aad waxaas maqashay dareenkaada sidoo noqday wallahi markaan arkay sawiradaas aad bay ii dhibeen aad baan uga xumaaday waa meeshaan deganaa 20 sana lasoo dhaafay south minneapolis lake 13 waa meesha aan ka mid ahay masaajidka abubakar asaasiyaashoodii oo aan 2005 aan dhidibada ugu aasnay masaajidka weyn ee xarunta ah waa meesha haywaatiya lake oo qarka u saaran yahay xafiiskayga aan ku shaqeeyo uu ku yaallo xaafaddaas maalintii waxaa laga yaabaa sida caadiga inaan mari jiray 7 ilaa 9 goor anoo hore iyo gadaal u socda ama salaadaha jameecada ama maaragtay makhaayad ama xaafadayda ama meel aadaya waa jidka aan maro maalin iyo habeen oon ku socdo waxaad moodaa warson inuu yahay ama meel laba ciidan inta isku dagaaleen maaragtay dadkii meeshaa deganaa ay ku baaba'een waa sawir naxdin leh waa sawir aad looga xumaado waxaana u sheegayaa dadka waxaa samaynaya waxaan nahay taxpayers canshuurteena ayaa lagu dhisi doonaa innaga naga go'an tahay stateka iyo citygu meel kale lacag kama keenayaan canshuurtii waddooyinkana lagu hagaajin lahaa caafimaadkana looga bixin lahaa nabadgelyada lagu ilaalin lahaa ayaa dib loogu samayn doonaa marka innaga ayaa dib isu geysanayna cid kale waxa ma yeelayno sheekh xasan hay-adda aad guddoomiyaha ka tahay jamciyadda islaamiga ee waqooyiga america oo marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano iyana waxaa hoos yimaada ku dhowaad 30 masjid haddii aysanba ka badnayn adigaa noo sheegi doona ilaa iyo hadda marka masaajidada iyo goobaha lagu cibaadaysto iyo madarasooyinka magaalada ku yaala dhibaatadan iyo burburka soo gaaray magaalada ma ka bad qabaan waa sax Islamic Association of North America ama jamciyadda islaamiga ee waqooyiga America ayaana loo soo gaabiyo waxaa ku midaysan in ka badan 35 organization oo Mareykanka oo dhan ah maraakista ugu badanna Minneapolis Minnesota ku leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala hana xifdiyo dhammaanteen iyo dhammaan maraakista kale ee dadka muslimiinta ee Minnesota ilaa hadda ima soo gaarin wax riboora oo macnaha ama madraso ama masaajid si gooniya loo barbar tilmaamsaday ama maaragtay loo wajahay laakiin waxaa soo gaaraya business Soomaalida sida durdur bakery oo ganacsi Soomaaliyeed oo aan aad u jecel lahay aadna ay dhibtay markaan arkay sawirka dhalinyaro u eka dhalinyaro Soomaaliyeed oo xalay goor dambe oo saqdi dhexa ahaa albaabka taagnaa oo rabay inay jabsadaan iyagoo garanaya dukaan Soomaaliyeed inuu yahay iyagoo garanaya waa hadday Soomaali noqdaan in uu yahay dukaanka hooyadooda iyo aabahood iyo eedooyinkooda ay ka adeegtaan marka aad bay ii dhibtay durdur bakery oo runtii dukaan aad iyo aad aan u jecel lahay isaga iyo maamulkiisa iyo dadka gacanta ku haya dad deeq badan ummadda Soomaaliyeedna garab istaaga laakiin hadda ma hayo weli macluumaad oranaya masaajidda ama madaarista in wax la gaarsiiyey
mid ka mid ah dadkana daawanaya ee barnaamijka nagala qaybgalaya ayaa wuxuu ku weydiiyey haddii mid la xiray saddexdii kale xaaladooda waa sidee waa arrin fiican maanta waxaan qoray waraaq annagoo ka kooban culummo iyo dad kale oo diimaha kale faith leaderskooda ama dadka kaniisadaha madaxda u ah waraaq dheer ayaan qoray maanta oo petitiona aan leenahay dhowr qodob baan ku sheegnay horta kow kuma qanacsanin qaabkii mark freeman uu u maamulay kayskan qaabkuu shalay u hadlay sidoo kale kuma qanacsanin judgekii maanta ama dembi oogidii lagu sameeyey oo ahaa dembiga darajada saddexaad iyo labaad taasna kuma qanacsanin waxaana ka dalabnay governor tim wallis 3 qodob oo ay ka mid tahay in kayskan laga wareejiyo mark freeman iyo hennepin attorney hennepin county attorney in laga wareejiyo loo dhiibo hay'ado kale ama prosecutorro kale oo madax bannaan sida Keith Ellison attorney generalka ama wixii la mida kayskana uu toos u hoos tago intuu degmada hennepin ka wareego governorka waxaan kaloo xusnay oo ka hadalnay sida ugu dhaqsaha badan in loo soo xiro saddexda kale iyo ninkani waa isku dembi way wada dileen dembigana waa geysteen waxaan leenahay waxaan dalbaynaa sida ugu dhaqsaha badan in saddexdii kale xabsiga loo taxaabo la eedeeyo lana xukumo dembiga ay xaqa u leeyihiin oo ah first degree murder iyo maxaan ku rahdaa maalin cad inay nin madow ah midabkiisa daraaddiis baan odhanayaa oo aan dagaalamaynin oo aan hub haysanin oo dhulka yaalla in ay nafta ka qaadeen ilaa isagoo qaylinaya arrintaa kama harayno waana dalbaynaa anoo matalaya communityga muslimiinta ee minnesota iyo maraykanka iyo gaar ahaan dadka soomaaliyeed oo ka mid ah dadka black americanka ee ku nool dalka maraykanka waayahay sheekh xasan dooye aad baad u mahadsan tahay waxaan jeclahay in aan intaasi kusoo gabagabeeyo wareysiga aadna siisay sheekh xasan dooye waxaa kasii horeeyey cabdinaasir cabdulaahi oo ah garyaqaan soomaaliyeed oo isaguna dhanka sharciga ka eegayey ninka amba afartii booliska ahaa ee dilka geysatay ee ninka madow dishay mid ka mid ah oo la xiray sida ay xaaladda noqon karto iyo waxa lagu xukumi karo iyo xarigiisa sida ay ku timid sidoo kale sheekh xasan wuxuu iga warramayey xaaladda guud ee magaalada minneapolis iyo shucuurta shacabka soomaaliyeed iyo kuwa muslimiinta sidoo kale waxaa barnaamijkan igala qayb galay oo aan u mahad celinayaa wariye caliyare oo isaga oo toos ah u jooga halka banaanbaxa hadda uu ka socdo islamarkaana soo warinaya bandowgii lagu soo rogay gobolka minnesota in uusan dhaqan gelin islamarkaana ciidamadii dheeraadka ahaa ee la keenay ee loogu talagalay in ay dadka iyo soo celiyaan sumcaddii magaalada islamarkaana dadka ay kala ceeriyaan in ciidamadii la ceeriyey ciidamadiina ay isaga baxeen aagga hore waxaan bulshada soomaaliyeed inta i dhegeysanaysa ee degan magaalooyinka mataanaha ah iyo gobolka minnesota iyo guud ahaan dalka maraykanka waxaan ugu baaqayaa inay guryahooda joogaan islamarkaana ay isha kala socdaan xaaladda sida ay tahay haddii banaanbaxyada dhacayana ay yihiin banaanbaxyo nabadeed inay ka qayb galaan oo shucuurtooda si nabad ah ay u muujiyaan sheekh xasan mar kale ayaan ku mahad celinayaa deeq aad baa u mahadsan tahay fariintaadaasaan sii adkaynayaa dhallinyarada soomaaliyeed ee degan minneapolis in badan oo ka mida waxaa lagu xiray dembi yar oo aan macno lahayn oo digniin la siin karay ayaa lagu xiray in badan oo ka mida waxay leeyihiin record waxa weeye marka macnaha galkaaga uu faldambiyeed kuugu jiro taasoo ka hor istaagi karta inay waxbarasho fiican helaan inay shaqo fiican helaan inay mustaqbalkooda meelfa gaaraan waxaan rabaa waalidka soomaaliyeed ee minnesota iyo gobollada kala degan iyo dhallinyarada soomaaliyeed inaan idhaahdo fadlan dhowr daqiiqo ama hal saac muddo leeg ama 5 daqiiqo galkaaga ama recordkaaga ama faylkaaga ha gelinin faldambiyeed noloshaada inta ka dhiman kula socon doona gurigaaga joog 8 habeenimo ilaa 6 subaxnimo waa faldambiyeed ayaa qofkaasi ku dhacaya waa lagugu xiri karaa waa lagugu soo qaadi karaa berrito sidoo kale waxaan rabaa inaan idhaahdo dhallinyarada adigoo qaatay ama mobile ama wax yara yaan maxkamad lagugu keenin adoo inta laba dhinac lagaa soo sawiray ku jira maxaan ku rahdaa criminal fileka ama Minnesota criminal website-ka oo markii la geliyo magacaaga iyo dhalashadaada ay kasoo baxayso in lagu eedeeyay inaad waxaday ama aad store jabsatay fadlan hana caabaynina diinta islaamka iyo dadka amatalaysaan sharaf xumaha usoo jiidina ilaahayna ka baqa waa xaaraam falkaasi lama samayn karo guryihiina jooga deeq aad baan kugu mahad celinaya adigana fursaddan qaariga waad mahadsan tahay sheekh xasan thank you so much